another banger. Baby, calm down. Yo, this your boy. Jerusalem koox Israa'iili ah oo dhaqaale u ururinaysa xagjiriinta Yuhuudda ah ee lagu xukumay qaar ka mid ah dembiyada nacaybka ee ugu caansan dalka ayaa ururinaya deeqaha cashuur dhaafka ah ee Mareykanka sida lagu sheegay natiijooyinka ay soo saareen Associated Press iyo goobta baaritaanka Israel Shomrim. Diiwaanka kiiska ayaa muujinaya in midigta fog ee Israa'iil ay ka helayso saldhig cusub oo Mareykanka ah. qadarka lacagta lagu soo aruuriyo hay'adaha aan faa'iido doonka ahayn ee Mareykanka lama yaqaan. Laakiin Ab iyo Shomrim waxay diiwaan geliyeen lacagta laga soo bilaabo New Jersey ilaa xabsiga loo taxaabay xagjiriinta Israa'iil oo ay ku jiraan Ra'iisul Wasaare Yitzhak Rabin gacan ku dhiiglihii iyo dad lagu xukumay weeraro lagu dilay Falastiiniyiin. Qorshahan lacag ururinta ee dibadda ah ayaa u fududeysay kooxda Israa'iil Shalom Asirate inay lacag ka ururiyaan dadka Mareykanka ah kuwaas oo ku samayn kara tabarucaadkooda iyada oo loo marayo hay'adaha aan faa'iido doonka ahayn ee Mareykanka oo wata kaarka deynta oo ay sheeganayaan canshuur dhimis. Sababo badan oo Israa'iil ah laga bilaabo isbitaalada ilaa jaamacadaha ilaa hay'adaha samafalka waxay lacag ku ururiyaan hubka saldhigiisu yahay Mareykanka. Laakiin haysashada istiraatiijiyadda ay qaateen koox caawinaya xagjiriinta Yuhuudda waxay kor u qaadaysaa su'aalo sharci iyo mid damiir leh. Xayeysiiska waxa ay sidoo kale ka soo horjeedaa dowlad cusub oo midigta fog ah oo ka dhalatay Israa'iil oo uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu halkaas oo xagjiriinta iyo sharci dejiyaasha xagjirka ahi ay heleen awood aan hore loo arag.